أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في كل لحظة ولمحة عدد ما وسع علم الله تعالى. waxaan horey soo sheegnay qaybo badan oo kamid ah waxyaabaha ay qabato maktabada shaamila azraartan hoos ku qoran qaar kamid ah ilaa laga soo bilaabo raska ikhtiyaar kitaab ilaa aan ka soo gaaray raska la yiraahdo istiraad malafaad. waxaan sheegnay istiraad malafaad waxa uu qabto iyo wadiifooyinka uu ku geenay raska markii la maarta lagu dhufto. haddana waxay noo joogtaa taxriir kitaab al-xaali. taxriir kitaab al-xaali wuxuu ku ogolaanayaa kitaabkan hortaada yaala in aad wax ka bedeshid ama akhdaa aad ka saxdid wax horle aad ku dartid iyo inahaas oo dhan waxyaabo la mid ah. qaabka laakiin aad ku tagaysa shaashada la yiraahdo taxriir kitaab al-xaali way ka bedelan tahay qaababkii horeeto. dhowr nooc baan ku gaari karnaa in aad marka ugu horeysa kitaabka fudud ikhtiyaar kitaabka tagtid kabacdi kitaabkii markii meeshii qiraada shaashadii akhriska markii uu ku jiro kabacdi aad ku dhufatid raska la yiraahdo taxriir kitaab sida waa ku gali karnaa. shaashadii hore aad joogtay way isbedelaysaa oo shaashad kale ka cad ayaa imaanaysa ama hadba kalarkii saaran taxriir kitaab xaali. waxaa kale ka soo dooran karnaa meesha meel aan ahayn in aad kitaabkii dooratid sidii hadda hore ku soo sheegnay bacdama kitaabkii shaashadii akhriska markii aad joogtay aad ku dhufatid malaf aad kana dooratid taxriir kitaab. wadiifada labaad oo aad ku soo gali kartaa waxaa waaye in aad ku dhufatay marka ugu horeysa ikhtiyaar kitaab kitaabkii aad doonaysay korkiisa aad tagtid dhanka midigta aad ku dhufatid baalka la yiraahdo mouska kabacdina aad ka dooratid taxriir kitaab xaali. sidoo kaleeto qaabab kale oo lagu soo galaana way jiraan laakiin saddexdaa nooc ayaan ku kaaftoomaynaa. waxyaabaha uu qabanaya marka raskani waxay sidaan ishaareeyo hadda wuxuu ku ogolaanayaa kitaabka inaad wax ku dartid ama akhdaa aad ka saxdid halka awal markii aad akhrisanaysay ay ka ogolaan waxyaabahaas oo dhan. matalan kitaabkan horteena yaala haddii aan damcay inaan xarafka tirrama yeelayo inuu naga tiro haddii aan damcay inaan wax qorana ma qorayo oo ma ogolaanayo laakiin haddii aan zarka ku soo dhufto wixii iga yeelayaa in aan wax tiro ama wax ku daro. matalan raadaas waan tiray haddii aan ku celiyana way soo qormaysaa. zarkan marka waxyaabo badan oo kale ayuu qabtaa wadaa'iftiisa aad bay u fara badan tahay laakiin waxaan ku soo laabanaynaa markii aan sharxayno qurfada la yiraahdo rizqa la yiraahdo qurfatu taxakum oo isaga ka dambaysa. qurfatu taxakum ayadana sida loo geliyo waxay tahay haddii kitaab ku furan yahay hadduusan ku furan yahay shardi maahan kitaab inaad fadhid marka hore awala marna markii aad timaad maktaba shaamila aad furtid kadib waxaad yeeli kartaa inaad ku dhufatid qurfatu taxakum sidaasna ay kugu furmaysaa cala doon. haddii kitaab ku furan yahayna way kugu furmi kartaa laakiin mar walba waxay u baahan tahay inaad ku dhufatid qurfatu taxakum. qurfatu taxakum markii aad ku dhufatid kadib waxaa kuu furmaysa daaqad caynkaan ah saddex nooc ka kooban dhinaca midigta dhexda iyo dhinaca bidixda. dhinaca midigta korkeeda waxaa ku qoran aqsaam kutub. aqsaam kutub waxaa laga wadaa waa majmuucaadkii oo xagga hore aan ku soo aragnay majmuuca caqiida majmuuca caqiidat almusnada tafaasiir culuum alqur'aan iyo qiraa'aat wa tajwiid iyo waxyaabaha caynkaas. korkeeda marka waxaa ku qoran meel ay ku qoran tahay alif bata munqatac xuruuf munqadica ah haddii aad ku dhufatana waxaa kuu soo baxaysa min alif ilaa ya xuruuf ka kooban. xuruuftaasi marka waxay kuu sakhiraysaa haddii aad xaraf ka mida dooratid in aad aragtid majmuucada kuu dooran oo marka matalan waxaan doortay majmuucada la yiraahdo mutuun al-xadiid waxaan ku dhuftay alif bata waxaa ii soo baxday alif ilaa ya. haddii aan doorta xarafka shiinka waxaan arkayaa dhammaan kitaabada xarafka shiinka ka bilowda oo daaqada labaad oo dhexda ku jirta iga soo iftiimaya sida hadda horteena ka muuqata. waxaa kaloo yeeli karaa daaqadaas alif bata markii aad furtid kadib inaad qortid majmuucada korsa macnaha ay kuu saaran tahay kuu dooran kitaab ku jira ama kutub ka jirta. matalan siyar oo kaleeto kutubta siyar marka siyar baa halkan ku qoraysa rasga ka dambeeya oo tasfiya ay ku qoran tahayna jag baa siinaysaa. dhammaan wixii kitaab siyar ka bilowda oo xarafka siinka siyar ay ka bilowda ayuu kuu taxaya jaanibkan dhexda ah mutawasidka ah. haddii aan majmuucaadka marka aad ogaatid oo majmuuco walba aad ogaatay iyo sida ay tahay iyo sida u kala dooranaysid iyo xuruufta ku tartiibsan halkaas majmuucada hoosteeda waxaa ku qoran asraar kala bedelan oo horma u baahan sharaxitaan. matalan murabbac nas ayaa halkan hoosteena ah sida hadda halkan ka muuqata. murabbac naska haddii aad wax ku qortid oo kaleeto matalan kitaabka aad rabtid baad ku qoraysaa kitaabku doona ha noqdo. haddii aad rabtid kitaabkaas inaad ka baartid majmuuco gaaran ah waxaa ku dhufanaysaa raska asaga ka horeeya oo la yiraahdo baxtan can ismi kitaab min almajmuucati alxaaliya. haddii aad rabtid maktabadoo dhan inaad ka baartid kitaabkaasna waxaad ku dhufanaysaa
بحثا عن اسم الكتاب في الكتب كلها في كل الكتب أو من كل الكتب. مثلا أنا وحن بقرأ كتاب لي هذا مجيء عيسى محمد رسول الله. كتاب مجيء عيسى محمد بن خصوصا قابسن كرا هدي أن رأى مجموعة سنة كبارة هيدا كله فنيا. مركز كتاب لي محمد بن حسن رواية محمد بن حسن أي صباح. هدي أن رأى مكتوب ضلنا كبارة وحن كله فنيا رزق اللباد أو عساي هري كسيجرة وحنا يجبار يا مكتب ضلنا. كي أن ربي هدي يسوبح ويا مر لا ينقصد فنيا مر صدق هذا ينقصد فنيا مر أفراد ينقصد إلا أن كجار كتاب كانوا بان. جانب كان حاجة وحي كل هذا هاي لبزر أو من كرو تاجي هاي مدينة لبا حب لا علامة ذكر سارن وليه هاي مد كرو تاجن وحكو هدي لا يكونين كو أجران يا شيء كان هذا كان كو قرطي مثلا وحرة مجموعة هر لين تكون بيرسد مكتبة شاملة حسنا مجموعة ما قاعدة يا كان كو قريسة كدي يسد ما قاعدة يا قريسة كبعدين رزق كرو جدا إضافة قسم جديد أيا اللي هذا كركيس أيات كل فنيسة محمد كي هدايا كتبهان تانو باريني وحين نقطة مجموعة وحين نوجد درمتي مكتبة شاملة هدي عرفت مركينات كتاب كاس محمد مجموعة داس مقعد عاد بشديد شد أو مقع كليتات كوبدل شد كفي عن حد سماين سام مقعد كوبدل لها آيات كقريسة ميشان مثلا واحد كقريسة الكتب كريس كده بعد على سبيل المثال شك بعد سنة إذا رزق كسوكية كي هدايا كل فن اللي تغيير اسم القسم المحدد مركز أيوس بدلية مقع هراسة رام مقع كلا أيوس كسر حتى مجموعات كي هراتو أول مكتبات هراء وسي تشري وكبدلي كذا مقع أديك سنة الناس أو أنت قرتي مقعات بدلية مركز رزق كذا بيا أو تغيير اسم القسم المحدد لإرادة أتكل فتن. صدق حقيقة وضع عن شرحني معناها مربع النسك أياه وحال شقينا يسا أفرزر لبك هو الرئيسي لبك ضمبيسا لبك كضمبيسا جانب ككتشر توين وحي وشقينا يان بحثي ومننا قسم محدد كان بكودو كاغا بحثنا منا مكتبات ضدمو كاغا بحثنا لبدا حاجه كخيتانا منا وحو كو قبانيا نسك ميشان كوغو قران انو مجموعه هور لا كاغا ديغو midna wuxuu ku qabanayaa majmuucadii hore inuu magaca kaaga bedelo hoosteeda waxaa ku qoran waxa la yiraahdo azraar munaqala ah oo kor iyo hoos u baxda midig iyo bidix u baxda azraartan hadii aan qismigan hadda al-kutub aan ku soo beerinay aan korkiisa calaamad tahayleed saaro oo aan ku dhufto raska kor u jeeda wuxuu siinayaa wadiifo ah inuu kitaab qismigan kor u kaco oo aqsaam kale uu ka kormaro hadii aan kan hoos ku dhuftana wuxuu u baxayaa hoos waa kor u baxayo hoos u bax laakiin qismigan muu dhaqaajinaya maxadadka kuwa midkan hore u baxay gaalo baxna wuxuu ka dhigi karaa qismigan inuu farac noqdo inuu noqdo waxa la yiraahdo ra'iisi oo hadii aan ku dhufto qismiga falaarta xagga u jeedana wuxuu noqonayaa waxa la yiraahdo ra'iisi hadii aan ku dhufto falaarta xagga u jeedana wuxuu noqonayaa farac iyo ra'iisi inay yihiin waxaad ku kala garanaysaa isku meel ma joogaanin oo aqsaamta marka ay soo fiirisid kuwa faraca ayaa waxay xigaan xagga maktabad weynta dhinaca hadii kale ta weysinaanaya waxa kale to ay noo qaban kartaa middan wadiifada baash la yiraahdo calaamadan balaas ka saaran yahay waxa la yiraahdaa xadf al-qism al-muhaddad oo qismigan hadda al-kutub ay ku qoran tahay ayaan waxaan rabaa inaan ka xadfa maktaba shaamila markaas korkiisa ayaad ku dhufanaysaa jag baa siinaysaa nacamna waa dhahaysaa ka bacay sidaas ayuu ku baxay laakiin hadii uu kitaab ku sii hoos jiraan oo qismigan hadda meesha ku yaala ay kitaab ku jiraan hoostiisa ma ka yeelaya ilaa kitaabada ka wadhamaysid oo kitaabada aad ka jirtid oo aad kitaabada ka xadirtid marka hore rasgan labaad oo xagga ka sii xigay rasga hadafka aan hadeertaan sharxaynay asaguna wuxuu qabtaa waxa la yiraahdo fahrisata ay kitaab غير مفهرس من كتب المجموعة arintaasna waxa laga wadaa fahriska kutubka caadiga ah oo Bukhari oo kale Muslimka oo kale fahrisadu waxay saashaa kitaabka in aad durba xadiiska meesha kaga jira aad u laaban kartid macnaha xadiiskii fahriska ka soo fiirinaysa meesha uu kaga yaalay baad soo ogaanaysaa safxadii markaas aad raadsanaysaa laakiin tan way ka bedelan tahay fahriska caynkan ah oo waxa weeye kitaabkii ayuu wuxuu u fududeynaysaa rasgan markii la riixo in uu durba uu ka baari karo macnaha si dhaqso badan uga baari karo maktaba shaamil barnaamijkan si dhaqso inuu soo gudbiyo baxtigiisa rasga xaga ka sii xigana ay kitaab غير مضغوط ayuu daqdinaya oo waxa weeye ururinaya oo waxa weeye macnaha si aadan hadda adigu dareemi karin ururin ah oo dhaqso uu ku dhaafi karo hadba baalka la yiraahdo baxtiga labadaas rasba marka waxay shaqirayaan baxtiga dhaqsihiisa degdegiisa ay kaalmeynayaan daaqadan labaad oo daaqada dhexda ku jirta
kor waxaa uga qoran asmaa ulkutub. asmaa ulkutub waxaa laga wadaa majmuuco haddii aad dooratay ama qismi aad dooratid oo aad ka dooratay qaybtii hore ee aqsaamta qismigaas gudihiisa wixii ku jiray oo kutub ah ayaa waxay imaanaysaa majmuucada qaybta labaad oo qismiga labaad ah, macnaha daaqada labaad. marka waxaa loo baahan yahay kitaabtaas sidii aad u tartiibin lahayd. imaa inaad ku tartiibiso, waxaad heli kartaa inaad ku tartiibiso kutubta qismiga ku hoos jirta sidii ay u kala horreeyeen wafaadkooda nimanka iskale, iyo alif inaad ku tartiibiso, labadaba waa heli kadhaa. waxaana ka dooranaysaa labada khiyaar oo kor ka saaran. alfabaa'iyaad haddii aan ku dhufto waxay noqonaysaa xuruuf bay ku tartiibsamaysaa. haddii aan ku dhufto wafayaadna waxay ku tartiibsamayaa baalka la yidhaahdo sidii ay u kala horreeyeen geeridooda, ninba ninka kale sidii ugu horreeyay. marka labadaas khiyaar sidaas bay kala qabanayaan. midna alifku kugu tartiibinayaa qismiga gudihiisa xadiidka ku jirta, midna wuxuu kugu tartiibinayaa wafayaadka. haddii aan daaqadan hoosteeda u baxno sidii oo kaleeto waxay leedahay murabbac nas. murabbac naskaas haddii aan wax ku qoro matalan waxaad ii qortaa hal oo kaleeto oo aan ku dhufto qismiga xagga ka ah, horey kasoo bilow. matalan kaas kor laabanaya aan ku dhufanayaa, waxay noqonaysaa inaan ku biirinay hal kitaab la yidhaahda magaciisa maktaba shaamila, laakiin magacii bas baa noogu jiray kitaabka gudihiisa wax ku jira malaha. haddii aan u baahno hadda inaan xadafno oo kitaab ka mid aan ka xadafno maktaba shaamila oo kaleetana sidoo kaleeto kitaabka ayaa calaamada saaraysa siday hal calaamad saaran tahay oo kaleeto. waxaan leeyahay xadf alkitaab almuxadad, calaamadan markii isoo saarana nacam ayaan sii dhahayaa. sidaas ayuuna noqonaysaa inuu uga baxay kitaabkii magaciisu uu hal ahaa. bal hadda aqsaamta horeeta inta inaga dhaaftid alkutub kii aqsaamta hadday aan soo biirinay ku dar hal asaga ku dar marka si aan hadhow isula xadafno. waan ogaanay labadan zar waxay qabato. midina waa naska halkan ku qoran kitaab iga dhig oo kutubta igu dar, midna waa kitaabka muxadadka oo qismiga ku jira iga xadaf. kan xagga ka xiga oo haddii ay ku leeyihiin jaanibka horteeda ku yaalana waxaa weeye magaca ka bedel. kitaabkii hadda hal aan u bixinaa bal u bixinaynaa, kan ka horreeyaan ku dhufanaynaa magacii halka ahaa bal buu isu bedelay. labadan asraartan munaqalkaana waa kor u bax hoos u bax, waa sidii tii hadaaya oo kaleeto. matalan kitaab ayaa halkan ii dooran, shaam ayaa igale baashi. labadan kitaab ayaan waxaan rabaa inaan isku dabamariyo. haddii aan ku dhufto raska hoos u jeeda kitaabkii korreeyey ayaa soo hoos maraya. haddii aan ku dhufto zarka kor u jeedana kitaabkii hooseeyey ayaa kor maraya. sidoo kaleeto anaa waxaan rabaa kitaabkan inaan meeshaan ka qaado oo aan geeyo qismi kaleeto oo ka mid a macnaha majmuucadan hadda uu ku jira atafsiiru culuum alqur'aan. waxaan rabaa inaan atafsiiru culuum alqur'aankan kitaabkan ka qaado oo aan geeyo qismi kaleeto. waxaan samaynayaa kitaabkii ayaan dooranayaa. kitaabkii markaan doortana daaqadan ayaan furayaa. waxaan ka dooranayaa kimeeshaan u baanahay. tafsiir baan ka dooranayaa matalan. waxaan ku dhufanayaa naql alkitaab almuxadad ilaa qismin aakhar. waan naqliyey kitaabkii haddeertan calaamadda ii saarayd, laakiin xaggee baan geeyey? tafsiir baan geeyey. tafsiir ilaan tafsiir culuum alqur'aan bay noo ahayd tii horeeta sooma. meeshaa tafsiirka ayaa kasoo helaysaa kitaabkii aan usoo naqlin. xaggee buu kaga jiraa marka? waa kitaabka ugu dambeeya kutubta qismiga ku jirta ayuu noqonayaa. waa kana haddii aad rabtay inaad meeshiisii ku celisida calaamad haylad baa saaraysaa, daaqadan ayaad furaysaa, sidaadii ayaad waxaad ka dooranaysaa culuum alqur'aan watafsiira ayaad ka dooranaysaa meesha awal ku jiray ah. waxaad leedahay calaamadaas ayaad ku dhufanaysaa. sidaas ayuuna noqonayaa kitaabkii mid kusoo laabtay meeshuu awal ku jiray. waa naqli kitaabka meeshaan ka naqli meel kala geey. waa kan hadda labadii kitaab waa ku wada jiraan. zarkan marka kaleeto oo jambigaana maynaan sharxin. waxaynaan u sharxin waxaa weeye qaab kaleeto ayaa ku tacalluqaya. matalan laba kitaab ayaa waxaa rabtaa inaad isu geysid oo dhowr kitaab baa meesha kuugu jirta. dhowrkaa kitaab baa marka waxaa rabtaa inaad hal kitaab ka soo saartid. inta macnaha nin baa wuxuu leeyahay ilaa 4 baxti 5 baxti meelahaas. marka 5 baxti way kugu dheeraanaysaa magac haddaa u gelisid, laakiin waxaad samaynaysaa hal kitaab hal ciwaan baa u samaynaysaa. halkaa ciwaan baad isugu geynaysaa. marka waxaad samaynaysaa mid walba waad soo koobiyeynaysaa. halkan ayaadna jagsiinaysaa. macnaha intaa kitaab rabtid baa koobiyeyn. macnaha midka hal baa la yidhaahdaa, mid kaleeto waxaa ku biiraysaa la yidhaahdo kan bal baa la yidhaahdo, mid hal la yidhaahdo ku biiri.
إضافة على سبيل المثال مد من الإيراد كبير على سبيل المثال صدح داس كتاب ماشى كود شريته مركا وحاربتها هل عوان أنا كسو سارتي ذا كلام حاسمين إسا مركا صدح ذا ضيع علامة صار إسا صدح ذا كتاب كارت عوان كارتين أو سن وجد بعضكم قرنا إسا مثلا محمد وكلاتا رتين أدولة بحد وحاسمين إسا مد مجايلة لو داس علامة مد كاربتا أيا دورنا إسا حدنا مد مجبالة وحاسواب حيسا محمد صدح ذي كتاب وحي كتير يدن هلك عوان محمد أيه سوق إيمانيا مركا كدب أيه صدح ذا عوان إسكحد بيسا لا عوان بدون واضح هنا أول با صدح ذا عوان بعد إسكحد بيسا لكن وهدي جذوه ذا كتير أما صدح هذا ثانك هذين مراين لو حبا هدي لا يكون يتمسور توبيسا مركز سيدا وحلوس وجرينينا وحنكو يعني 10 ذا ندم 10 10 كذا بيعيو كتير وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.